oo aad u badnaa. wararka Soomaalida ka baxsanayna eegi doona laakiin qaar ka mid ah musharaxiinta la diiwaan geliyay ee loo xaqliyay in saaxiibo dhow yihiin madaxweynaha Jubbaland ayaa ka hor yimid dalabka beesha caalamka gaaraan xubnaha shalay halkaas gaaray oo ugu horeeyay wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya. shalay wafdi hogaaminaya wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya Ambassador James Swan ayaa gaaray magaalada Kismaayo waxaana la kulmay madaxweynaha maamulka Jubbaland musharaxiinta alla diiwaan gelin ee garabka ka soo horjeeda Axmed Madoobe iyo xubnaha kale waxaana xubnaha beesha caalamka ay dalbanayeen waqti kororsi in waqtiga doorashada la kordhiyo si xubnaha musharaxiinta ee alla diiwaan gelin fursad loo siiyo ay isku diiwaan geliyaan. hase yeeshee dalabkaas waxaa maanta ka hor yimid kana soo horjeestayna musharaxiinta madaxweynaha Jubbaland ee hore isku diiwaan geliyay ayagoo sheegaya in marna aysan aqbali doonin waqti kordhin loo sameeyo ama waqti kordhin la sameeyo doorashada oo waqtiga lagu ballamay 19 bishan ay ahayd in doorashada madaxweynaha ay dhacdo in waqti kale dheeraad ah lagu daro. qoraal ka soo baxay xubnaha musharaxiinta ee isdiiwaan geliyay oo ku midaysan magaca kudlada musharaxiinta madaxweynaha Jubbaland waxa ay sheegayaan in ay aad ugu xun yihiin in guddiga doorashada ay ka gaabiyaan inay kala tashtaan geedi socodka iyo hanaanka doorasho xaqna u leeyihiin wax walba ku saabsan arrimaha doorashada in nagala tashto maadaama ay buuxiyeen shuruudaha musharaxnimo. waxay ku xuseen qoraalka ay soo saareen waxay kaloo ay qoraalkooda ay ku sheegeen in guddiga doorashada ay sidoo kale ay ku dhaliilayaan in wafdiga ka socda beesha caalamka ee tagay Kismaayo aysan la socodsiin guddiga isla markaana oo muhiim ahayd in musharaxiinta la diiwaan geliyay ee habraaca maray in wax walba oo tallaabooyin doorashada ah in la socodsiiyo. ugu dambeyn waxa ay sheegeen in madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee Axmed Madoobe iyo iyagaba ay ka wada simeeyeen talagelinta ama in lagala tashto doorashada haddii ay dhici doontaba in fursad la siiyo xubnaha saaxiibadooda ay musharaxiinta kale mucaaradka ee aan la diiwaan gelin sida ay ku xuseen qoraalka ay maanta ay soo saareen Jimcaha. ugu dambeyn militariga dalkaas Pakistan